السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدواد ولا لهيق قالقا ومرك كلا إيو فاطمة فيلسان شنو كتقدر نسوي فاطمة فيلسان قف إذا الله الله يوانق فاطمة فيلسان وحيدين رجينا إن العافية ما قبطان اسكسون نقد وناكسان إن عاو فيديو حضو بين أنا قرصون هالكاسة فديدا كاميرا دقداشي يا أصحاب هذا سدوا قرصوني وندوي ولا شيء ما هتصمت هذه طاوض يا شاب هاي محمد الله ده علينا هي سود ولا هاي وكاس وانو كا قادنay nala sii joog aduguna waxaan ka sheekaynaynaa taariikhda intaanu anagu maqalay hadda waa intaanu maqalay moogtahay ama aanu aragnay iyo intii la arkaybo afar xaaslayaasha Soomaalida ugu fariidsanaa kuwa Soomaalida kuwa kale de taariikh kama hayno dadka kale afarta xaas waa ka baqaan qof hadaad aragto Soomaalida ma ku dhiirad qof afar xaas iyo laba xaas iyo saddex xaas u darabdejisan hadaad aragto Soomaali hadduu xataa Soomaali ahayn firba u gala geesinimada waa meesha ka keenaan waa Soomaalidu waa dad aqligu 100% yahay oo pressure-koodu 100% yahay oo waxaan ku iri wax kastaba active ku ah marka afar xaas la ka bilaabayna shirkada afar xaas oo maxaa lahay nin afar xaas qabay haye afar xaas ku lahaa way isu deganayeen afar xaas way isla deganayeen baadiye ayuu deganaa baadiye marka soo afar xaas la guursaday asaga wacid ka roobko tana maalin islaami way wareeriyeen mid kasta waxay dhihiin taad ugu jeceshahay maalin dabada wixii waxay dhaheen midaad ugu jeceshahay waa inaad noo cadaysaa haye wayna afartoodu way isla socdaan moogta afartoodu way isla socdaan markaasay ninkii inta wiimaadeen waxay dhaheen midaad noogu jeceshahay ilaa aad noo sheegto wax sheeko noo soconaysa ma jirto haye buu dhahay ninku caqli badan buu ahaa wuxuu yiri dib ma lahe ana idin sheegaye baadiyaha qofkii yaqaanaba geed waxaa jira nimanka ay waabtaan oo cabaar kala xaafada u jira oo duhurkii qorax kuleelkii meelahaas kale ay seexdaan nimankaas seexdo geed cabaar guri u jira waay wuxuu geedkaygaas iyagu imaada hurdo wuxuu ku samayn doonaa talo afarta xaas uu isu keenay reer mudilaa iyagoo socda imaadeen haye taatana wuxuu yiri waxa la idinka keenlay soo mid anigu idinku jeclahay ma aha ana idin sheegay laakiin aniguna shardi baa wataa shardiga aan wato dhahay midda idinku jeclahay markaan sheego dhahay inaysi kuwa kale u sheegay waa sheeka akale kuwiina kale uma sheegayso dhahay kaligeed bas iyo aniga isla ogaanayno dhahay haye dhahan laakiin wuxuu midda aniga aan doorto oo aan dhuuyi taasa jeclahay aniga iyada bas ogaanayno dhahay kuwa kale waa laga qarin buuyi wayna wada joogaan ogow waxa la qaranayo uu leeyahay deetana wuxuu yiri soo saas ma aha deetana wuxuu yiri hayehe horta waa sii jeedsanaysan oo dhahay midda aniga u jeclahay uu yiri dhabarka ka taabanaya waa midda ugu jeclahay uu yiri moogtahay dhabarka ka taabanaya midda ka taabtana kuwa kale uma sheegi karto hayay dhaheen way ka aqbaleen go'aanka way ka aqbaleen way ku raaceen waa la sii jeedsaday afartoodiba dhabarku ka taabtay mid kale u sheegaysana ma jirto deetana wuxuu yiri maxay sameeyaan hadda midii dhabarka laga wada taagay isaga og laakiin kuwan kale ma og hadda wixii midii ay ma ogaatay midda anigu dhabarka ka taabtay bay ahayd bii mid walba amba wala iga taabtay may dhihi ma dhahayso ballanta waxay ahayd inaysan sheegin mid walba way qarisay ballanta markii hore waxay ahayd inaysan sheegin soo ma aha deetana wuxuu yiri deetana wuxuu yiri hadda wuxuu yiri midii aan dhabarka ka taabtay weeyaan bii midaan ugu jeclahay midaasina wuxuu yiri iyadaa is og afartii la taawil de la wada aamusnay ma iska fahmaan inuu ninku wada taabto dumar allah adiga waqti sheekada laga dhaadhicin karo ballanta ahayd inaan la sheegin marka mid kasta waxay isu malaynaysaa kaligeed waa sheeko kale midii la taabtay kaligeed inay ahayd moogta islaamihii marka maalintii horta xasilaad ugu horeysay mid kastaba isxanka kuuf bay gashay iyo wallahi adiga un baa lambar 1 ah labadiiba dhabarka laga horta ninkaasi wuxuu ahaa nin caqli badan oo fariid ah oo nimanka garta gooya anigu horta aqligiisa afar xaslayaasha ku daydaa ninkaas bismillaahir rahmaanir sida ninkaas wuxuu xaleenina waxba u xalin karin naadar wadada wuxuu xalin karaa isku guursanin hal xabba iska ag fadhi
haddaad sida ninka caqligaagu maasha allah 100% yahayna waxaan ku idhi hadalba ha ka soo celinin midda labaad ku xijiyo ta saddexaad ku xijiyo afraadda ku xijiyo waxaan ku idhi waxaad ka sheekeynaysa waa naya waxaad ka sheekeynaysa waa talada waxaan maya wiilasha Soomaaliyeed waa inay waxaan ku idhi reeraha badiyaan Soomaalidu waa inay la tartanto maxaa la dhihi jiray qoomiyadaha jira waa inay la tartanaa yaa waxaan ku idhi dhiirigelin gabdhowna walaalayaal wiilasha iska fasaxa walaala fasaxa annaga waxaan ku idhi annaga unbaa badanayna annaga qoomiyadaha la tartamayna dad lagu faanaan noqonaynaa dad lagu daydo aan noqono marka afarta xaasna nimanka ilaahayna waa u baneeyay haweenaanu ogolaada wiilalowna guursada qarashka u yuusa idin ciilin sheeko kalaad wadaa waa runtay maxaa dhacay wiilashaad nagu diraysaa maxaan idinku diray anuu runtaan sheegay wiilashaas waa inay afarta xaas iska guursadaan deetan horta midkaas lambar 1 buu ahaa kii ku xigay isagoo 2 xaas buu lahaa haye deetana waxaa dhacday 2 xaas baa u heshiiyey afar xaas 2 xaas laana haystay waan garanay deetana 2 xaas baa u heshiiyey way saaxiibeen adigu markay saaxiibeen horta ninna suntiis waa 2 xaas hadday u heshiiyeen colba waa halkaas uga bilowday maalinka u heshiiyeen isaga waxaaba danta ugu jirtaa inay islaamaha isku dhacsan yihiinoo israbin oo midda kale arki karinoo isku buuqsayin danta ugu jirta laakiin maalintay u heshiiyeen bas waayo waxaan ku majaraha waa loo tashan hadday caawa dili rabaan xataa labadooda heshiiskay ku gelayaan kow iska heshiiyeen haweenka Soomaalida hadday ragga suntiisa taa heshiiskooda laakiin hadee haweenka Soomaalidu haween aad u aqli badan oo lagu kari maayo deetana waxaa dhacday maalinta dambe 2 gabdhood saaxiibbay ahaayeen waa heshiiyeen waxay dhaheen ninka unbaysan nifeen waxay dhaheen ninka caawa guriga yaa laga furay albaabkaba shaqo ku maqan yahay moogta waxay dhaheen bal albaabka yaa laga furay ayuu yidhi deetana waxaa la albaabkii buu gar mid guriga uu ku soo horreeyay buu albaabkii garaacay markaasay ku tiri adar lagaama furaayee banaankaa tahay haye lawaa nin dee reer kale lehe maxaaba tan hadday muran keentay wareerkaaba geliyay reer xaafadiis kale iska aada saa waa garaacay albaabkii waa garaacay saa waa laga furi waayay markaasu wuxuu yidhi nalbaka waa layga furasaytay lagaama furaayee ka socay ku tiri meesha deetana wuxuu yidhi wallahi way kuu tashteen aayarun buu tegay cabaar buu maqnaa waxaa li meel waxaa jirta foostooyin oo biyo lagu dhaamiyo oo daaradda banaankeedoo kale yaalaan meel xaggaasoo kala foostooyinkii unbuu tegay waxaa li baaldi biyaa unbuu darsaday markaasuu aayar isku shubay markaasuu waxaa la yidhi soo gargaraacay albaabka naga fura sayti baa la war maxaa lagaaga furaya albaabka somaanaa diida suu yidhi naaqabow baa igelayo waa soo qabaystay shaqaa ka imaada waa soo qabaystee albaabka layga furo gabadha horta koomo unbayba gashay xanaaq way ka furtay waxay tiri gabadha tambalanta la galay soo nintii albaabka ka furtay gurigiisa muusa aadin ha ka yaabin aroortii hadduu waagi bariyay 2 gabdhood dagaal oo loo waxaan ku idhi horta isku dirkii u weynaabu halkaa ka dhigay laakiin isagu caqligu isticmaala waxay ahayd dee 2 guriba waa layga soo erjay 2 shirtagi kara moogta dana xal buu keenay fariid buu horta kaasna ahaa bilada 2 buu leeyahay fariid dhaafay buu ahaa fariid dhaafay buu ahaa bilada 3aad isaga mar kale lagu darayaa kaasuu 5 bilad la weeye 4 bilad laba waa dhaafay 5 biladood baa la guddoonsiinaya wiilka soo socda si uu caqli badan yahay asxaaba intaasaan kusoo gabagabeynayaa videoga dadka hesha like noo saar dadna ku cusub tahay nagu soo biir asxaabteena ka mid noqo isla joognaa